inta xisbiga barwaaqo ee ku shiraya magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ayaa wada hadlaya arrimaha siyaasadeed kuwa bulsheed kuwa dhaqaaleed iyo kuwa diblomaasiyadeed haddaba kulankaasi guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo wuxuu ka wada hadlay mowduucyo kala duwan oo dalka taabanaya waxaana la sheegay oo goobtaasi laga soo jeediyey in aragtida siyaasadeed ee xisbiga barwaaqo ay tahay mid ku salaysan qowmiyadaha kala duwan ee si wada jirka dalka ugu wada nool oo lagu keenayo siyaasad nabadgelyo iyo xasilooni ku salaysan haddaba xubnaha guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo ee shirkaasi ka qayb qaadanaya ayaa arrimahaasi ka hadlay mudane Islaahun Kabada oo ah xubin ka tirsan xisbiga barwaaqo ayaa yidhi sidan soo socota ህብረ ብሔራዊነትን ከመናገር አልፈን በተጨባጭ በተግባር ስላሳየን ህብረ ብሔራዊነትን mudane Islaahun waxa uu sheegay in laga sii gudbay in qowmiyadaha kala duwan ee leeyahay la wada nool yahay hadal ahaan kaliya laga sii gudbay oo ficil loo muujiyay arrintaasi waxay tahay iyo macnaha ku fadhido waxaana jirta buu yidhi in hogaaminta sare arrimahaasi aqoon u yeelatay oo ka qaybgelin iyo ka qayb qaadasho sarraysa ay jirto wuxuuna sheegay in ay jiraan khayraad badan oo weli laga faa'iideysan oo haddii laga faa'iideysto dalkeena dhibaatooyinka ka jira wax ka qaban kara oo dadaalkaasna socdo ጽግና ያዋለደውን አዲስ ስርዓት በተመለከተ ለዘላቂ ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያ ግንባታ እንዴት መቀጠል አለበት የሚለው wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la xaqiijiyo jiritaanka dalka isla markaana la xaqiijiyo nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka oo taasi mid joogta laga dhigo in arrimahaas iyadoo jihada ama diiradda la saarayo in si ballaaran looga wada hadlay sidoo kale Girmaayo Shitla oo isaguna xubin ka tirsan guddiga fulinta xisbiga barwaaqo ayaa ka hadlay ኢትዮጵያ ላይ በተለያየ መንገድ ያልደረሰው ውርጅብኝ የለም በዚህ በለውጥ ሂደት ውስጥ በእንደዚህ አይነት ህመሞች ለማለፍ ቆርጠን ካልገባን ግን nidaamka waqti xaadirkan jira ee xisbiga barwaaqo oo keenay waa mid dadaal sareeyo ugu jira wada noolaanshaha qowmiyadaha kala duwan ee dalka ka jira iyo sii wadida dhismaha Itoobiya wuxuuna xubinkaasi sheegay in arrimahaasi uu shirku si qoto dheer u qiimeeyay una ka wada hadlay waxa kale oo laga wada hadlay buu yidhi sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee nidaamku la kulmay oo mustaqbalka waxaasoo kale looga iskaga ilaalin lahaa wuxuuna sheegay in laga wada hadlay qaabka nidaamkani si xooggan ugu sii socon lahaa oo midho dhal u noqon lahaa oo la qabto hawlo kala duwan oo isbeddelka dhab ka dhigaya sidoo kale waxaa ka hadashay Marwo Adane Chabebe oo iyadu ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo Marwo Adane waxa ay sheegtay in ay jiraan marka la eego dhinaca ka bixidda saboolnimada arrimo wax ka qabasho u baahan Marwo Adane waxa ay sheegtay in isbeddelka dalka ka dhacay uu xilliyo kala duwan dhibaatooyin waaweyn u la kulmay oo wax walba lagu sameeyay waxayna sheegtay in loo baahan yahay in ka go'naansho lala yimaado oo dhibaatooyinkaasi khadhaadh laga gudbo waxayna intaasi ku dartay in caafimaad qabka siyaasaddu uu marba marka ku xiga uu soo wanaagsanaanayo wada noolaanshaha iyo walaaltinimadu inay soo xoogaysanayso waxayna sheegtay in barnaamijyo kala duwan lagu ogaan karo sida uu qaatay dadweynaha dalka Itoobiya fikirka iyo qaabka xisbiga barwaaqo ee talada dalka haya